الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. fadliga laylatulqadri uu leeyahay si yaroo kooban oo qof kastaba u fahmi karo ayaan insha allahu tacaala kusoo koobahaya. laylatulqadr waa habeen uu ilaahay subxaana watacaala inoogu sheegay qur-aanka yiri bacda acuudu billahi min ashaytaan arajiim bismi illaahi araxmaan araxiim inaa anzalnaahu fi leylati alqadr wamaa adraaka maa leylatu lqadr leylatu lqadri khayru min alfi shahr tanazalu almalaa'ikatu walruux fiiha biidni rabbihim min kuli amr salaam xataa matlaca alfajr. waa habeenkii qur-aanka lasoo dejiyey. habeenkaas wuxuu ka kheyr badan yahay 1,000 bilood, waa 380 sano. idan marka maxaynu kaga faa-iideysan karnaa habeenka isaga ah? 3 shay. 3 shay oo ah salaad iyo sadaqo iyo qur-aan akhris, oo intaba lagu qorahayo 380 sano inaad salaadaa tukanaysay, inaad sadaqadaa bixinaysay, inaad qur-aankaas akhrinaysay. in yaroo fudud. 10 dambe haddii la galo habeen kasta waxaad maaragtay tukataa ha u yaraatee 2 rakaco. weli waxaa aada usii fiican inaad salaada cisho iyo salaada fajir inaad jamaaca ku tukatid. salaada cisho iyo salaada fajir in aad jamaaca ku tukato waxay la mid noqonaysaa 380 sano adigoo jamaaca salaad cisho iyo salaad fajir ku tukatay ajirkeedaad leedahay. salaadii ama 2 rakac yaa aada habeen walbo oo aada tukato. haddii aad jamaacada haleeli weyso masjidka kaa fogyahay meel maaragtay aada joogto. 1 inaad walowba hal bound allaha ka dhigo ama dollar allaha ka dhigo ama meeshaad joogtid lacagteeda waxay ahaato crown ha ahaato, riyaal ha ahaado, dirham ha ahaado, dinaar ha ahaado, adiga halkaa inaad sadaqa oo baxsato habeenada. habeenkana wuxuu ka bilaabanayaa bacda alcasr, maqribka xigta ilaa iyo fajirka, sida aayadda uu ilaahay inoogu sheegay xataa matlaca alfajr, fajirka ilaa uu kasoo daahiro. sadaqadaas iyadana 380 sano adoo sadaqa bixinahayay baa lagu qoray. qur-aan akhris habeenadaas habeen walbo 3 qolwalla akhri. 3 qolwalla waxay u dhigmaysaa adoo qur-aankii oo dhan dhameeyey. maxaa dhif qur-aanka markii 3 loo qaybiyo halkii qolwalle qul huwa allahu axad waxay la mid tahay thuluth alqur'aan. qur-aanka 3 meeloodoo loo dhigay meel bay maaragtay ay la mid tahay. 3 markaad akhriso qur-aankii oo kaamil baa lagu qoray. idan marka waxaad helaysaa ajar ah 380 sano adoo qur-aankii khatimay dhameeyey ajirkiisaad ku heli. marka aynu ka sahay qaadano. idan marka 10 maalmood marka dad baa waxay taargetka saarahayaan maalmaha tirada isdheer. nacam, nabiga waa yiri tirada isdheer ka raadiya, laakiin waxaa la rabaa 10kaas maalmood inaad gunta u xirato. waayo nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam waa la itusay habeenka
leylatulqadarka, laakiin waa la ilowsiiyey. waa la ilowsiiyey. calaamado lagu gartana nabigu waa tilmaamay. aroortaas subaxaas qoraxda sidii dayaxiyo oo 14 oo kale ah, oo aanan wax kule lahayn, wax shicaac oo maaragtay lahayn oo kale ah ayay soo bixi. taasaa lagu gartaa habeenkaas inuu leylatulqadr ahaa, ow kamaa qaala nabiy sala allahu caleyhi wasalam, siduu nabiga inoo tilmaamay. marka walaalayaal, yaysan ila dhaafin. alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. ha laga faa-iideysto. ilaahay subxaana watacaala hana waafajiyo habeenka isaga ah. waxaa la rabaa intuusan 10 dambe intaan la gaarin in ilaahay la baryo oo la yiraahdo allahuma wafiqna leylat alqadr, ilaahu na waafaji habeenka leylat alqadr. waatan markaanu shacbaan joognay, allahuma balliqna ramadaan. ma garata, ilaahu ramadaan na gaarsii tan la leeyahay. dabcan markaad adigu albaab gargaraacdo oo aada maaragtay wax weydiisato, waa lagaa furahaya. waxaad weydiisatayna waa lagu siin. rabbi subxaanahu watacaala in la weydiisto, layirahdo ilaahuna gaarsii. marka ilaahay hanaga aqbalo soonkeena iyo salaadeena iyo zakadeena iyo sadaqadeena. allahuma wafiqnaa fi leylati alqadr, allahuma wafiqnaa fi leylati alqadr. ilaahu habeenka leylati alqadriga rabbi inuu nawaafajo. sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi wasalam.